halkani waa qubanaha TV ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo diiday in uu magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi yimaado ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xilli magaaladaasi uu gaaray madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo la sheegay in uu kala dhexdhexaadinayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani wada hadal ayaa uga socda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani sidii magaaladaasi loo geyn lahaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo xilkaasi uu haminayay in Siciid Cabdullaahi Dani uu ku soo baxo nin ay qaraabo yihiin xoogii ugu dambeeyay kulamada magaalada Garowe uga socda madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo Siciid Dani ayaan idin soo gudbin doonaa xogaha kalena waxa kamid ah hay'adda NISA waxay u yeertay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo la sheegay in ay xiriir dhow la leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaanadani oo la shaaciyay magacyadooda iyo deegaanada ay ka soo jeedaan sidoo kalena xogaha aan helayno waxay tibaaxayaan in xildhibaanadani lagu hayo cadeymo rasmi ah oo hay'addu ay dhawaan faafin doonto xogaha kalena waxa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu qaaday tallaabo la yaab leh uu ku dhiiran waayay madaxweynihii isaga ka horeeyay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale xogo iyo ilo wareedyo muhiim ah oo inoo xaqiijiyay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qalinka ku duugay dhawaana uu soo saari doono xilalka ugu dambeeya ee dawladdiisu iyo sidoo kalena uu xilka qaadis ku sameyn doono hay'adaha taliyaasha hogaaminaya waa booliska iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka xogii ugu dambeeyay ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa xogaasi kuwa kalena qaybtan waynu ku faaqidi doonaa hadduu rabbi idmo balse aynu ku bilaabno madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa isurtaa ku sameeyay xilli uu magaalada Garowe gaari lahaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu diiday inuu booqasho ku tago Puntland ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre sabab la xiriira khilaaf isaga iyo madaxweyne Axmed Madoobe oo ay doorashadii ku kala tageen ra'iisul wasaaraha reer ahaan isxiga ama sidoo kalena u dhow madaxweynaha Puntland Axmed Madoobe Dani waxa uu ka carooday inaan reerkiisa hoose la siin kursiga uu Xamse ku fadhiyo Axmed Madoobena u arkay inuu dhabar jabiyay ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku soo dhaweeyay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland xilli uu dhowr dalab ka diiday ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo hadda kursiga isaga ku matala safarka ugu dhawaan Xamse ku tagay Jigjiga ayay wararku sheegayaan in uu sahlay safarka Xamse ee dhawaan la doonayo in afgarad lagu soo dhameeyo uuna tago magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland Mustafa Cagjar madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa dhexdhexaadinaya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani si uu xiriirkooda u wanaagsanaado dhanka kale ganacsato ka soo jeeda reerka ra'iisul wasaaraha Siciid Dani waxay kala hadleen arinta u dhaxaysa isaga iyo Xamse waxa uu sidoo kale ganacsatadii ay Siciid Dani u cadeeyeen in dawladda Soomaaliya haatan uu ku matalo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sidoo kalena waxay ku sheegeen in markii ra'iisul wasaareyaasha qaraabada ama xigtada la Siciid Dani ay joogeen dawladda Soomaaliya ay iyagu la shaqeyn jireen haatan laga doonayo in Siciid Dani uu la shaqeeyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee loo diiday inuu gaaro Puntland oo ka mid ah maamulada dalka ka jira wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dhul uu ra'iisul wasaare ka yahay ay geeyaan ganacsato ka soo jeeda reerkiisi sidoo kalena kulamada magaalada Garowe ay haatan ku yeelanayaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale hogaamiyaha Puntland iyo ganacsato ka soo jeeda labada reer waa Siciid Cabdullaahi Dani reerka uu ka soo jeedo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay ka wada aanaysanayaan sidii khilaafka u dhaxeeya Xamse iyo Dani loo soo gabagabayn lahaa hay'adda nabad sugidda sirdoonka qarankana waxa ay u yeertay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo la sheegay in ay xiriir la leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab sidoo kalena xildhibaanadani waxa la sheegay in ay fududeeyeen waxyaabo la soo geliyay magaalada Muqdisho sidoo kalena waxa sidoo kale xoguhu ay tibaaxayaan in xildhibaanadani ay qayb ka noqonayaan xubno la sheegay al-shabaab inay ka tirsan yihiin oo ciidamada dawladdu ay qabteen kadibna qaab damiina ay ku sii daayeen dawladda Soomaaliya wali maysan cadeeynin in xildhibaanadani ay si toos ah ula shaqeeyaan balse xogaha aynu helayno waxay tibaaxayaan in xildhibaanadani ay inta badan sii daayaan waliba qaab damiina ay ku sii daayaan xubnaha al-shabaabka ee la soo qabto iyaga oo sheegay in ay ehelo iyo xigta yihiin sidoo kalena baarlamaanka ay ku matalaan
hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka oo maalmaha boodi baaritaanadan xildhibaanada lagu sameynayo ayaa waxay sheegtay in xogtani dhowaan ay soo shaacin doonto sidoo kalena ay banaanka soo dhigi doonto xildhibaanadanina maalmaha nagu soo aadan ee lagu wado xog baaris iyo in la sameeyo in xogahoodu dib u baaris lagu sameeyo sidoo kalena la ogaado xogta ka dambaysa in ay la shaqeeyaan al-shabaab sidoo kalena wararku waxay tibaaxayaan in ay ka soo muuqan doonaan liiskani ganacsato waaweyn oo reer muqdisho sidoo kalena ganacsatadani waxaa la sheegayaa in iyagu ay siiyaan lacagaha ugu badan al-shabaab sidoo kalena dhowaanahan dowladdu ay amaro kala duwan ka soo saartay in ganacsatada ay siiyaan lacagta loogu yeero waxyaabaha sakawaadku ay u yaqaaniin ee dagaalamayaasha al-shabaab hay-adda nisa ee uu hogaamiyo taliyaha nisa mahad maxamed salaad dhowaanahanba waxa ay howlgallo ka sameynayeen daafaha magaalada muqdisho iyo gudaha iyagoo howlgalladaasi sheegay inay kusoo qabqabteen rag ka tirsan al-shabaab oo ay sheegeen in ay ku jiraan rag muhiima oo saraakiil waaweyna oo al-shabaab ka tirsan mahad maxamed salaad waxa uu isbedel weyn ku sameeyay hay-adda waxa uu xilalkii ka xayuubiyey raggii horey ula soo shaqeeyay agaasimihii isaga ka horeeyay waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahire dhammaan waxaa la soo tawinayaa in saraakiishii horey uga shaqeynaysay hay-addan ay isaga baxeen magaalada muqdisho markii ay cadaadis kala kulmeen agaasimaha cusub ee hay-addan waa Mahad Maxamed Salaadi sidoo kalena markii laga qaaday garaadihii iyo sidoo kale gunooyinkii ay ku lahaayeen hay-addani ay ka dhoofeen garoonka Aadan ee magaalada muqdisho wararku waxay warinayaan in saraakiil iyo askar ka tirsan hay-addani ay hadda noloshoodu dabcan ay ku nool yihiin dawlado ka tirsan waa Turkiga iyo sidoo kale dawlado ka mid ah Afrika wararku sidoo kale waxa ay ku darayaan intaasi in Mahad Maxamed Salaad uu sidoo kalena tababar u sameynayo ama tababar u qaadayo dhalinyaro cusub oo doonayo in ay ka shaqeeyaan hay-addani markaan haddii uu eegno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qaaday tallaabo la yaab leh oo uu ku dhiiran waayay madaxweynihii isaga ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhawaanba shaaciyay dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kalena waxa uu sheegay in sanad gudihiisa Soomaaliya idin looga saari doono al-shabaab sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la filayaa dhawaanahanba inuu soo magacaabo xilalka harsan waa kuwa gobolka iyo sidoo kale taliyaasha booliska iyo ciidanka xoogga dalka waxa xubnahani la sheegayaa inay xilalkoodu ku waayi doonaan qaarkood qaabka awood qaybsiga Soomaalida ee 4.5 sidoo kalena xubnahan kalena waxa la sheegayaa inay xilalkoodu ku waayi doonaan la macaamilka iyo saaxiibtinimadii kala dhaxaysay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubno dhowra ayaa ka soo muuqan doona liiskani oo xilka qaadistu lagu sameyn doono sidoo kalena wararku waxay sheegayaan in isbedel waaweyn lagu sameyn doono hay-adaha waa sidoo kale taliyaha booliska iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay Qunaa TV-na xilligan waa nagintaa